الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka kale waxaan rabaa inaan aad mahad ballaaran u jeediyo oo u mahad celiyo dhammaan asxaabtii iyo ahalkii iyo akhyaartii iyo dhalinyaradii iyo shacabkii faraha badnaa oo sanadii barkii la soo dhaafay igala garab taagnaa sidaan uga shaqayn lahayn oo u haanan lahayn kursiga nambarkiisu yahay 166 oo waxa deegaan doorashadiisa ay ahayd Puntland siiba magaalada Garowe dadkaas aan rabaa inaan mahad aad u ballaaran aan u soo jeediyo aad uga mahad celiyo sidaad la socotaan ilaa maalintii sabtidii ayaan halkaan ka dhoofay anoo u safray magaalada Garowe oo waqtigaas loo waqtiyay kursigii aan islahaa inaan u tartamo oo tartankiisa aan u galo oo markaas ka madlanaa marka waxaan aad iyo aad uga xumahay in maxaa la yiraahdaa loo diiday bulshadii lahayd kursiga inay si cadaalad ah oo iyaga doorashadooda ah ay u doortaan cid ku matalaysa baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxaan kalsooni buuxda ku qabnay dhammaanteen dhowr iyo 10 bilood oo la soo dhaafay inaan si wanaagsan aan islahayn inaan kursigaas inaan ku hanano oo hadii la yiraahdo aan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed aan ugu adeegno laakiinse nasiib darro ayadoo taas laga cararahayo taas ay cabsiga weyn ay keentay ayaa waxaa lagu kacay waxyaabo dhinaca marsan sharciga oo baal marsan habraacyadii loogu talagalay doorashada inay ka dhacdo Soomaaliya baarlamaanka loogu talagalay wax baal marsan oo qaabka loogu talagalay in lagu la dhaqmo waxyaabaha cajiibka aan rabo inaan la qaybsado waxay tahay anigu dhowrkii maalmood aan joogay waxyaabaha ay ugu cajiibka badnaa waxay ahayd waa laga yaabaa maamul meel ka jira inuu la jeclaysto qof inuu la jeclaysto oo kursi la jeclaysto siyaasaduna waa sideedaba waa iskaalmaysi iyo isgargaarsi laakiinse markasta waxaa loo dhexmaraa sidii loogu talagalay oo afraacyadii degsanaa iyadoo la raacayo ayuu cid kastaaba siyaasadda ciddii ay isku jaalka yihiin ayay u hirgelin kartaa waxyaabaha ugu cajiibka badan waxay tahay waxaan kusoo aragnay Garowe waxyaabaha aan horena loo maqal aan isleenahay waxyaabo ceebna waxay ku tahay in la yiraahdo Soomaaliya doorashadeeda guud ahaan iyo gaar ahaanba Puntland oo isleenahay hadda waa waxay jirsatay ugu dhawaad ruuc qarra jirsatay oo la yiraahdo waa hooyada federaalka in waxyaabaha noocaas oo kale in lagu la kaco waxa cajiibka oo qosol kale waxay tahay in madaxtooyadu ay amar siiso oo ay la soo hadasho guddiga loogu talagalay doorashada oo ama siidka loo yaqaan ama guddiga doorashada oo heer maamul goboleed oo amar lagu siiyo la yiraahdo fulaan hebel waa inay siisaan foomamka dadka guddoonka iyo maxaa la yiraahdaa dadka dhaqanka ah iyo kuwii bulshada rayidka matalahay iyo kuwii ergada matalahay in la siiyo oo aad arkayso foomamkii loogu talagalay in ay guddigaas ayagu si cadaalad ah oo wanaagsan ay u buuxiyaan oo u hagaajiyaan oo hoteelada qolalka hoteelada iyo makhaayadaha saf loogu jiro oo lagu buuxinayo waxyaabaha marka cawaaqib xumada iyo fool xumada leh oo aan ku soo aragnay Garowe ayay taas waxay ka ahayd meel waxyaabaha fadeexada iyo balka dhac u ah haddii aan isku darno aan isku cabirno anigu 2016 waxaan ku jiray dadka u tartamayay kursigan laftigiisa sanadkaas 2016 ama kalkii hore Puntland waxay ahayd oo markaas ay caan ku noqotay inay hormuud sharaf iyo qurux iyo wanaag iyo model wanaagsan ay u noqoto doorashada waddanka ka dhacday dhamaantood oo si cadaalad ah oo nidaamsan oo dadku ku wada faraxsan yihiin aniguna ku guuleysan anigoo faraxsan oo wanaagsan oo qalbigaygu aad ugu fiican yahay iyo dadkii kale oo aniga la midka ahayn sidaas ay ugu soo wada noqdeen taasi waxay ka dhigan tahay dadkii xilligaas xukunka hayay ayaa waxay ahayd dad ay ku weyn tahay oo ka fakaraya oo ka dhaxaya wadajirka iyo maxaa la yiraahdaa wanaagga iyo horumarka ay leedahay Puntland dad u naxaya oo dareenka shacabkoodana iyo dadkoodana ilaalinaya ahaayeen laakiin hadda kuwa jooga waxa ka muuqda inaysan waxaasba aysan u aabiyeelin aysan ku dhex jirin aysan ka fakarayn haddii magaalo meel ka gubanaysa mid meel ka qaxaysay dad qaylinaya toona inaysan ka fakarin sidii ay ugu talagaleen si kasta inay si boob ah oo lahayn loo aabiyeelin inay ku qaataan ay u dhaqmayaan aad moodid inaan wax danaba ka lahayn oo raba inay ka qaxaan oo doorashadan ba hal mar hana dhaafta leh oo inay ka soo qaxi doonaan inay ka qaxayaan Puntland baan dan ka lahayn sideed yihiin dad u dhaqmaayo
marka waxaan soo jeedinayaa shacabka puntland guud ahaan gaar ahaan waxaa la yidhaha beelweynta ama oo bahawadaagta ahayd oo lahayd kursiga 166 inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka tashadaan ayahooda iyo sidii aysan dib dambe sidaan oo kale tacadigan iyo takrifalka intaan oo kale la-eg inaysan ku dhicin oo inay ka fekeraan oo ayaku mustaqbalkooda dambe waxyaabahan oo kale sida ay isaga dhoori lahaayeen oo isaga ilaalin lahaayeen ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambalyo usii hormariyo ninkii kursiga loo xiray oo ku noqonaya xildhibaan ku noqonaya haddaan hambalyadan usii horumarinaya waxaana rajaynayaa inuu si wanaagsan oo cadaalad leh inuu ugu howlkarnimo leh inuu ugu howlgeli doono uguna shaqayn doono uguna adeegi doono bulshada looga dhigay xildhibaanka ayagu aan dooran laakiinse looga dhigay xildhibaanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadda sharafta leh waa idinka mahad celinayaa kulankeeni ilaahay baa mahadle asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu